بسم الله الرحمن الرحيم موضوعيdu maanta waxa isaga yar badanayaan biririxdu waxa weeyaan waa arin run jirta oo laga cabsanayo iyo wax marxaatigeedii la furi laayahay oo laga cabsanayo diiniyana runta in laga cabsada ma aha marxaatigana ilaahay furo buu yiri moogta marka waxaan sidaa u leeyahay waxa kaloo jira diintu inta badan waxay sheegaysaa wixii wanaagsan in qofku uu ku farxo haddaad aragto qof wax wanaagsan ka naxaya waa shaydaan marka had iyo jeer wax kasto wanaagsan baynu bogaadinaynaa wax kasto wanaagsan oo qof bilaadmi loo qabtay baan bogaadinaynaa waxaan aad u bogaadinaynaa maxaabiista ay dawladda federaalku ku dhawaaqday inay sii deynayso 1200 yaa la sii deyn doonaa sida ay dawladdu sheegtay 60 kamida in maanta la sii daayaa laga yaaba waxaan sidaa u leeyahay u bogaadinaynaa waxa weeye ceel nin galay baa laga wareystaa tala Soomaalidu waxaan dareemayaa maxbuusnimada xanuunka ay leedahay qofka maxbuuska awood daridiisa qofka maxbuuska maanta la soo daaya farxadda ka muuqanaysa xalay guri laga naxsanaa laga barooranayay yaa caawa laga farxanaan karaa oo mataqaanaa dadkiisa ay farxanaan karaan qoyskii baa burburaya dhaqaale ahaan buu burburaya dad ahaan buu burburaya qofkii xidhnaa awlaadiisii iyo mustaqbalkii baa ka baaqanaya lug qofku wuxuu u noolaa tarankiisii baa xitaa baaba'aya marka xanuunka ay leedahay maadaama dareemayo marka maxabiis baa la cafiyay liiraa waan ku farxaya ciday doonta ha noqoto qoomeeday doonta ha noqoto waa dad muslim ha noqdo gaala ha noqdaan waxay doontaan ha noqdaan dambigay doonaan ha geystaan qofku mar hadduu dambi geysto waa la cafin karaa marka ujeedadeedu ma aha maxabisnimadooda inaan uga hadlo arrinta kale rabo inaan tooshka ku yar qabto waxa weeyaan marka uu wax dhaco wixii dhacay inaad aragtuun ma aha waxaasi waxbu ku yimid waxaad garanaysaa marka maxabista la sii deynayo siyaasadda waddanku nooca u socotaad ka fahmi kartaa ya movementigeeda marka siyaasadda waddanku waxa u socotaa waa nidaamkii madamarta baa socdo maxaa looga golleeyahay maadaama waddankii doorasho uu galayo xisbigan BB oo cusub la rabo dadku inay soo dhaweeyaan in ururo kalena ay la tartamaan waa in dadkii la kasbado marka dawladda waxay dan ugu jirtaa intaasoo qoys oo naxsanaa walbahaarsanaa dawladda laftooda ku kacsanaan kara in dawladdu ay ku kasbato intaasoo qof oo miisaan lahaa oo siyaasiyiin ahaa oo dembi galay eeg raggii dembigeeda weyd geystaba la sii deynayaa maxaa loo sii deynayaa siyaasadda dawladda ka muhiimsan dee meesha loo socdo waayo hal nin oo dembi weyn galay oo qoomiyad dhan iyo dad loo baahan yahay magac kule marka la sii daayo qofkaa dartii qofkaasaa muxuu samaynayaa xisbiga endorsement xisbiga laftiisa inuu hadla laga yaaba intaasoo kun oo qof inuu kasba laga yaaba waa policy marka waxaan ka hadlaya waxa weeyaan the reverse inaguna sidaan u soconno inaga xaggeenana waxaad moodaa in tumaalo waaweyn inaad dubayaal hor lala tumanayo qab waxa bir iyo waxa iska rogo bira la rogayo ee la tumanayo waad yaabi moogta waxaad garan kartaa mar kasta Soomaalidu inay u socoto reverse nidaam fawda duwan fawda waa dad ka samaysan nidaam fawda oo had iyo jeer qawaaniintu ayna qancinin oo had iyo jeer aan kala saaraynin ag Soomaalidu waxa kala saar leedahay waxaan sharciga waxa loo sameeyay iyo nidaamka qofka xooga badan iyo ka kale inuu u dhaxeeyo qofka hadaad jeceshahay iyo hadaad nacab tahayba sharcigana idin dhaxeeya war sharciga ma ku xadgudbay maya bas adiga nacabshiinu waa gooni marka waxaan ka wadaa oo qodobkan u soo qaatay nidaamka dawladdu u socoto federaalka dawlad deegaanku meel madax bannaan ma aha siyaasadda Itoobiya baan ka lunjaaxaynaa marka haddaan parallel ku noqono mar walba oo noqono mid ka hor imanayso oo kor u socota eeg togu markuu soo rigmado haddaad kor u qaado uu kula tegi dadka ina qaadi marka had iyo jeer warqaabka dawladdu u socoto ismaamul baan nahay politically waa in qaabka u socono politically waa in qaabka ula jaan qaadno waa iscafis waxba la iscafinaya waxa loo socdaa dadku inay gacanta saaraan inagana wax kale iska daaya anigayga halkan fadhiya yaabad ma taqaanaa heer waxa jira ciyaalkayga yararba inta dad kale loo sameeyo iskuulka marka soo baxaya ma lagu yiraahdo biin baa la xidhaya si la ii cabsi geliyo ciyaalkayga yararba markaan tago way igu wada dhigdhigaya xaafadaydan aan fadhiyo walbahaar yaan ku saaxaynaa habeen walba oo kan baa la yiri sidan baa la leeyahay waxaana la leeyahay waa wax fawdo oo la fidinayo waxa arkaysaa nidaamka noocaas marka anagu waxaan doonaynaa dadku inuu iscafiyo dadku in la mideeyo
marka mar labaad waxaan mahadinaynaa nidaamka iscafiska ee dowladda federaalka marka wax ficnaan lahaa nidaamka iscafiska kiiladana deh lagu baahiyo kiiladana loo soo dhaadhiciyo korun ku laalaanin hadda dad xidhan oo la cafinayo anigu ma garanayo oo taas waa been laakiin had iyo jeer waxa fiican ba in laga dhigto siyaasad nidaamka iscafisku inuu socdo in mission hore aan la abuurin waxa jiraya siyaasadda dadka looma jangoyn karo ururada siyaasadda looma jangoyn karo imaka onlaf waxay tidhi oon maqlayay waxaan soo sharaxanaynaa dadkii muwaadiniinta ee waddanka sii joogay way soo sharaxan karaan dadku ma dembi buu wada galay war dembi waddanku ma wada gelin 10 milyan nimanka siraaj la yidhaha 10 milyan ee deegaanka sii joogtay horta waddan yaa iska leh ma ninka ku dhex dib jiray ee biyaha darsanayay ya ee u soo samray ee cudurku ugu dhacay ee loo xidhay baa iska leh ee loo dilay mise ninka cararay baa iska leh waxay tiri dadkayga muwaadiniintan soo sharaxanaynaa iyadoo taa laga duulayo yaa dadkii waddanka sii joogay baa la leeyahay waa dembiilayaal moogta waxaas wax loo dulqaadan kara maaha dembiilayaal ma aha kuwa waddanka ka cararay ee siyaasadaha kala wataa dembiilayaala marka waxaan leeyahay nidaamka waddanka aan la fawdaynin dowladda federaalka maxaabiista iyo waxay sii daysay waan ku farxaynaa annagu shaadiin ma nihin shaadiintaa ka naxda wixii wanaagsan waan ku farxaynaa waanu u taaniideynaynaa soomaali ciddii ugu jirtana ilaahay ugu daro cid kasta oo soomaali oo xidhan oo isa saxday ilaahay ka soo daayo waa taageersanahay fikirka in cid kasta oo maxbuus oo isa saxday oo ilaahay u soo noqotay oo dembigeedii qaratay maxbuusnimadu waxay leedahay qofka maxbuuska 6 bilood baa ku filan wallaahi qofkaas inuu mid doqona yahay mooyaane 6 bilood qofku markuu xidhnaado ilaahay buu toobad keeni wax walba ayuu ma taqaanaa liidkeedii buu sameeyay ruux markuu saan noqdo de inuu sii xidhnaado oo caruurtiisa ka xidhnaado tarankiisa ka baabao oo gablamo caruurtiisa ay ka fisqi iyo balaay ka noqoto tababarkii ka lumo quraankii ka boodaan dib jiriin noqdaan taa laftoodu bulshadii baa dib ku tahay wax dan oo inoogu jirta ma jiro marka nidaamka isxafiskan soo dhaweynayna mawduucana intaasaan kaga baxaya